wax aan horay loo arag 60kii sano ay Soomaaliya jirtay ayaa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho si gaar ah garoonka ciyaaraha ee Muqdisho in ka badan 65,000 oo shacab ah ayaa shalay u daawasho tagay ciyaar ka dhacaysay tuulada ciyaaraha ee Muqdisho iyadoo fajac iyo amakaag ay ku noqotay dad badan waxaa kale oo garoonka mar qura shaashada kore la saaray sawirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka ay dhamaatay ciyaarta iyadoo dhammaan taageerayaasha garoonka ay u sacabtumeen madaxweynaha mucjisooyin iyo waxyaabo aan horay loo arag oo shalay ka dhacay garoonka Muqdisho ayaan idin la wadaagi doonaa balse waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim inoo tahay inaad like saarto muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro una share garay asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale kuna soo biir boggeena Facebook maadaama aan ku socono wadadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo followers ah shalay waxay ahayd maalin kale oo qiimo badan isbartiibada Muqdisho waxaa shalay ka jirtay ciyaar adag oo wadatay xiisaheeda kooxo ka tirsan horyaalka Soomaaliya kana mid ah kooxaha ugu awoodda badan ciyaaraha Soomaaliya ayaa isku arkay ciyaartii shalay iyadoona labada koox ay soo bandhigeen ciyaar aad u xamaasad badan wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir marti sharaf iyo dadweyne fara badan ayaa ka qayb galay kulankii shalay ee ka tirsanaa horyaalka kubadda cagta Soomaaliya oo kooxaha horseed iyo kooxda dawladda hoose ee Xamar Muqdisho City Club ku dhex martay tuulada ciyaaraha ee Muqdisho kulanka oo ahaa mid lagu go'aaminayay cidda badisa inay horyaalka qaadayso ayaa labada koox waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u xamaasad badan oo ay si weyn ugu riyaaqeen dadweynihii ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ciyaarta oo ahayd weerar iyo weerar celis ayaa waxa qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay barbardhac ewer ah ciyaarta markii la isku soo laabtay qaybta labaad ee kulanka ayaa labada dhinac waxa ay abuureen fursado ay goolal ku dhalin kareen balse ma noqon taasi oo waqtigii ciyaarta loogu talagalay waxay ku soo idlaatay goolal la'aan oo ah barbardhac ewer ah waxay tani ka dhigan tahay in labada koox ay weli isku dhibca yihiin waxayna kala heestaan min 35 dhibcood kooxda Muqdisho waxay la dheeli doontaa lugta u hartay kooxda gaadiidka halka kooxda horseed ay la ciyaari doonto dekadaha iyadoo haddii ay soo wada badiyaan ciyaar kala bax ah ay dheeli doonaan labadooda marka taasi laga soo tago waxaa kale oo shalay garoonka ka dhacday arrin kale oo mucjiso ah oo dad badan ay baraha bulshada aad uga falceliyeen waxayna ahayd in mar qura dhamaadka ciyaarta shaashada garoonka la saaray sawirka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu xasuusan doono in dawladdiisa ay hirgelisay ama ay dib u dhistay garoonka Muqdisho Stadium madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu xukunka hayay waxay dawladdiisa ciidamada AMISOM ka saartay garoonka Muqdisho Stadium oo sanado badan fariisin u ahaa garoonka waxaana kadib lagu sameeyay dib u dhis ballaaran